soo dhawaada saaxiibayaal meel kasta aad joogtaan. Waa weekend, waa sabti, suuq waa xiran yahay maanta iyo beriba waxaynu ku jirnaa fasax, laakiin maalinnimadii arbacada ahayd tradekan quruxda badan ayaynu fursadahaynu suuqa ka qaadanayno usbuucan lasoo dhaafay ku gebagabaynay. wax kale kuma aynaan qaadan tradekan, waxaynu ku qaadanay qodobada iyo qawaaniinta aan mar kasta idinku soo celceliyo oo ah institutional trading, qaabka ay u trade gareeyaan smart traderska, dadka suuqa rangareeya oo market makerska ahi, qaabka ay u trade gareeyaan istiraatiijiyadooda iyo tacticalkooda ayaynu inaguna ku trade gareynaynay. fursadaan ku qaadanay, isla markaan intriga qaadanay waa aragtaan 4 candle ayaa na gaarsiiyey targetkeenii. target 1keenu waliba waxaa loo loogaan, target 2geenuna wuxuu ahaa meeshaan ay TB-ga hore naga siisay. waa 4 candle oo keliya, waa 4 saacadood gudahood ayaynu TB-geena kaga qaadanay marka uu suuqu xirmayey jimcadii. way maanta waa sabti, suuq waa xiran yahay. tradekan maxaan ku qaadanay? liquidity baa layna siiyey, liquidity-geeni baa la qaaday. waxaana ujeedaan waa counter trend break baa la sameeyey, intrigeena halka inuu ku laabtay, kadib fursadeenaynu qaadanay. waxaan oo dhan aan ku celcelinaya xaggee bay kasoo bilaamataa? trendigay kasoo bilaamataa zone inaa haysatid, zonekeeni waa kan. inaa haysatid liquidity waa tan. counter trend inaa haysatid oo break lagu sameeyo, break waa lagu sameeyey, kadibna intrigaa lagu laabtay, kadibna hore ayaynu fursadda kasoo qaadanay. waxaan waa kusoo celceliyey, wax badan waa kusoo celceliyey, wax badan waan idinku soo celceliyey. qawaaniintan aan ku qaadanayno tradeskan waa waxaan inta badan idinku soo celceliyo weeye. fursaddan maxay sameynaysay? waa fursad down trend ahayd. maxay sameynaysay? lower low, lower high, lower low, lower high, lower low ayay sameynaysay, soo ma? halkan markuu suuqu marayay baa analyze garaysay. tusaale ahaan lacagtu markay halkaa marayso maxay samaynaysaa? nasashadii ayay samaynaysaa. nasashadu waa counter trendkii. fursaddu zoneka maxay ku tegaysaa? qaab counter trend ayay ku tegaysaa. qaab counter trend ayay ku tegaysaa. kadib counter trendka la soo jebinayaa, kadib intrigayga lagu laabanayaa, kadibna maxaa la siinayaa TB-gayga la siinayaa. haddii qawaaniintaadu ku dhammaystiran tahay, hore ayaa TB-gaaga ka qaadanaysaa. zonekuna markasta fursadda aad ka fulinaysaa halkan uu ku yaallaa. waay meelahan waxaa laga yaabaa inuu kugu jiro, maxaa kugu jira? liquidity-gaagii. liquidity on top ayaa ka raadinaysaa. waa tradeka selka marka aad qaadanaysid, tradeka selka ama bearishka marka qaadanaysid, high liquidity baa ka rabtaa, counter trend break baa ka rabtaa, kadibna maxaa ka rabtaa in lagu aado meeshan laga soo break gareeyay, waa inaad ka helaysid candle entry ku noqda. candleka entry ku noqda inta badan 1 hour time frame-ka ayaa ka fiirsanaysaa, kadibna suuqaaga hore ayaa kasoo qaadanaysaa. waa easy. qawaaniintan aad lacagta ku samayn kartid, maalin walba aad ku tirigarayn kartid, gelinka hore iyo gelinka dambe aad fursado suuqan kaga heli kartid. waa istiraatiijiyadda runtii, waa very easy strategy. waa istiraatiijiyad aad si fiican u fahmi kartid. waa istiraatiijiyadda suuqan dhan ku socdo. suuqan dhan wuxuu ku socdaa from zone to zone, zone to zone. trading in the zone, meesha laga trade garanayo waa meel zone ah weeye. zone la'aan trade ma fulin kartid. haddii aad liquidity soo heshid, counter trend aad soo heshid, wax walba aad soo heshid, laakiin aadan soo haysan wax trade meeshaas kama muuqdo. zoneku waa waxa ugu muhiimsan weeye. waa trading in the zone. waaye waxa trading zoneka ka muhiimsan waxa weeye waa trendiga. inaad trend haysatid. suuq waa inuu jiha haysto. suuq waa inuu ama up trend yahay ama down trend yahay. suuq waa inuu ama up trend yahay ama kan waa maxay? waa down trend. suuqa up trendka isaguna waa maxay? waa suuq kor u socda. waa suuq kor u socdo weeye. kan maxaan dhahaynaa? waa uptrend market weeye. fursadda aad ka raadinaysid uptrend market-ka waa maxay? waa fursad buy ah weeye. fursad suuqa down trend-kana maxaa ka raadinaysaa? fursad sell ah ayaa ka raadinaysaa. suuq sell ku socda buy kama raadinaysid. suuq trendigiisu up yahayna sell kama raadinaysid. qodobadaas meel ku qoro. isku day inaad hadalkayga fahantid. suuq down trend ah fursad buy ah kama raadinaysid. waxaa ka raadinaysaa oo keliya fursad sell ah. don't be against the market. ha noqon qof ka soo horjeeda marketka ka soo horjeeda. suuqa haddii aad ka soo horjeesatid oo suuq down trend aad tiraay fursad sell ah baan ka raadinayaa, fursad buy ah baan ka raadinayaa, dee isla markaba waxba kuma aha in
lagaaga dhaco stop loss kaaga haddii suuq uptrend aad trade waxaan ka raadinayaa fursad sell ah baan ka raadinayaana waxba kuma aha in candlesku isla markaba ay ordaan stop loss kaaga ay ordaan sell trade ka ku khasaarsan qodobkaasi waa qodob aad u muhiim ah hadda yeelsan istiraatiijiyada oo dhan waxa ka muhiimsan trendiga ina xaqiijin kartid lacagtaani xagee u socotaa baayiskeeda guudi ma uptrend ba mise waa downtrend ma uptrend ba mise waa downtrend hadda suuqaani xagee u socdaa hoos buu u socdaa maxaan ka raadinayaa oo kaliya fursad sell marmarka qaar oo fursad bay ah laga raadiyo way jirtaa laakiin haddii aad tahay arday beginner ah suuq walba oo hoos u socda ka raadi fursad sell suuq walba oo bay u socdana ka raadi fursad bay ah scenario-yinka aanu qaadano scenario suuq downtrend ah fursad bay ah laga raadsado oo counter trendkaani inta zone-keena u socdo aan ka faa'iideysanayno way jirtaa laakiin fursadda bayda laftigeeda waxaan fulinaynaa inagoo og in suuqani uu yahay downtrend inagoo og in meesha loo socdo ay tahay zone-ka adigoo aan ogeyn meesha loo socdo fursad bay ama qaadan kartid suuq sell adigoo aan ogeyn meesha loo socdo oo lacagta in zone loo wado haddii aadan ogsoonayn ma qaadan kartid fursadda bayda ah okay suuqa sidoo kale uptrendka ah fursad sell ah waa ka raadinaynaa goormaan ka raadinaynaa goorta aan ka raadinayno waxa weeye halkani waxay noo tahay zone for example halkani waxay noo tahay zone suuq u soo socdo ayay noo tahay waa meel boosteja oo suuqa aan rajaynayno inuu noo yimaado soo ma waa meel boosteja oo aan rajaynayno in suuqa laga baygareeyo halkan way fahanteen lacagtaani markay halkan imaanayso qaab trend ah counter trend ku imanaysa soo ma qaab trend ah oo counter trend ayay ku imanaysaa soo ma aragtid trendigan soo socda ayaan ka soo faa'iideysanaynaa inaga oo zone-keena ku imanaynaa sababta aan ugu imanayno laftigeedu ma horaan ka soo gelaynaa may kama soo gelayno laday waxbaan tusaaya fiiriya lacagtan laftigeeda baydaan kacaysa fallaarta marka idinku muujinayo toos bay ka dhalisku wada bullish isaga noqonayaan maya waxa ku tagaysaa suuq walba trendi buu ku socdaa iyada laftigeedu qaabka trendiga bay u soconaysaa okay muxuu yahay laakiin trendigan u jeedaan muxuu yahay waa trend yar oo ku dhex jira trendigeennii weynaa ku dhex jira wey trendigeennii weynaa baayiskeena trendi yara oo 15 minute trendi ku dhex jira wey trendiga ka hor imanaya oo counter trendka noqonaya isaguna waa 15 minute halkaan ka soo bilaabanaya ila socday isaguna waa maxay waa 15 minute halka marka la marayo maxaa la jabiyay waxa la jabiyay trendigeennii hore Soomaa oo halkan uu ka jabay haddii aad fiidiyoyada in badan daawatay telegramka ku jirtid youtube-keena la socotid meelaha aan fiidiyoyada soo dhigo tiktok ka mid tahay haddii aad la socotid bid by bid waxaan sheegi doono xitaa fahamsantaa way halkan ba trendigeennii yaraa ka jabay oo counter trendkan hoos socda ayaa awoodii suuqa la wareegay taas micnaheedu miyay ka dhigan tahay jihadii guud ee suuqa way kala wareegtay maya jihada guud ee suuqa meesha inoo haysa waa halkan way higher logan ayaa inoo haysa jihada guud ee suuqa higher logan ayaa inoo haya jihada guud ee suuqa aan idin calaamadiyo waliba higher logan ayaa inoo haya jihada guud ee suuqa way wajida higher logan illa la jabiyo trendiga guud ee suuqa marka la wareegayo that means suuqani waa uptrend laakiin fursadda tan 15 minute lower time frame trendiga kan waa la soo jabiyay trendigan 15 minute isaga lower time frame ka baa soo jabiyayo trendigani wuxuu socdaa zone-keenan waa u socdaa uu gaaraya zone-kana waa meesha aynu ka soo qaadan doono fursadda weyn ee bayda ah way fursadda weyn ee bayda ah way isku day inaad muuqaalkayga si
deeply u daawatid wax walba haysid in inta faraha ka qaadid waxan aan sharaxayo wax yar dhageyso maskaxdaada si tarkiisa ay dhageyso okay intan yar aan hadda sharaxayo wax weyn bay ka taraysaa trendgaaga aqoonta aan lagu trade gareeyo oo aan fursadaha ku qaadanana 50% waa intaan hadda sheegay inaad fahamtid oo kaliya waa trendiga inaad fahamtid oo kaliya waa 50% way maxaan niri trendigeena guudi waa uptrend waa higher low soma goorma trendiga guud ee suuqa inoo kala wareegaya marka higher lowgeena la jabiyo maxaan niri lacagtu hadday uptrend tahay fursadda kaliya aan ka qaadanayno waa fursad baya laakiin haddii lower time frame trendiga yarka ah ee lacagtu impulsive ah oo lacagtu ay higher u dambeeyay ay ku samaysatay haddii counter trendka soo laabanaya uu trendiga yarka ah kala wareejiyo fursadda selka ah waa ka faa'iideysanay inta halkan la imanayo laakiin maxaa ka horeeya waa inaad garanaysid meesha loo socdo waa inaad garanaysid jihada guud ee suuqu inay uptrend tahay waa inaad garanaysid trendigani inaan waqti badan lagu sii jiray way hadda maxaa la jabiyay counter trendigayga ayaa la kala wareejiyay baan leeyahay counter trendgi ayaa la kala wareejiyay baan leeyahay way counter trendka awood la wareegay soo ma halkee suuqin hadda suuqa xagee ay maamulaysaa addaynta waxa ay maamulaya suuqa lower high-gaas ay maamulaya soo ma aragtid lower high-gaas aan fursad ka soo qaadanaynaa marka lower high-ga laftigiisa maxaa lagu tagayaa 5 minute bullback lagu tagayaa soo ma ilaa haddii casharadeeda oo dhan aad daawatay advancedna aad tahay addaynta trade-kan maxaa ku qaadanaynaa trade-kan waxaan ku qaadanaynaa directional bias-kan oo ku cabiranayno 15 minute kan la kala wareejiyay soo ma 15 minute-ka maxaa ka cabiranaynaa directional bias-kan ogaanay in sellersku hadda awood ay la wareegeen waqti kooban oo aan doonayno selkan hadda socdo inuu suuqa inoo geeyo dhammaankeena inoo geeyo waaya halkan marka maxay noqonaysaa lower high suuqa inoo haysay bay noqonaysaa suuqa halkan marka aragtidin lagu soo jabiyay counter trendigaagii hore halkan suuqa impulsive ku soo samaystay 15 minute lower time frame-ka zone-kaaga waxa ku noqonaya counter trend 5 minute abaa la tagaysaa 5 minute counter trend baa la tagaysaa soo ma aragtid counter trend baa lagu tagay zone-kaaga yaraa lagu tagay waana 5 minute halkaana waxa ka eeganaysaa liquidity-gaagii sharcigii aa waafanjin jirtay trendiga fursadda weyn marka aad qaadanaysid ayaa tanna waafajinaysaa waa isku mid waa isku mid way maxaa hadda raadinaynaa waxaan raadinaynaa liquidity-geena halka ka soo helay liquidity oo top qurux badan in halka ka soo heshay tusaale suuqa waxani every time bay ka dhacdaa liquidity-gaaga waa soo heshay soo maaha waxaad doonaysaa keliya in trendigan lagu kala wareejiyo oo hadda laftigeeda iyada waxaad u jeedaa in counter trendkani uu kor u jeedo waxba kuma aha in counter trendkaagi 15 minute suuqa kuwa lugti suuqa ku haystay oo lower high-gaagan yar ka ahayd lower high-gaagan mar walba waa inaad ogtahay lugta suuqa ku haysa hadda zone-ka lugta ku maamulaya trade-kaaga waa lower high-gaaga way lower high-gaagan haddii la jabsado micnaheedu waxa weeye suuqi already uptrend buu kala wareegay no more sell aan sii qaadanayaa ma jiro laakiin inta la joogo lower high-gaagan qawaaniintaada waxa eeganaysaa inay kuu waafajiso inaad trade sell ka heshid waa fahantaan malaynaya hadda ma doonayo umana ololeynayo in lower high-gaagan la jabiyo waxaan doonayaa counter trendkan in la jabiyo waaya counter trendkii waa lagu jabiyey soo ma aragti kadibna intrigaaga halka lagu soo laabanaya kadibna toos waxa loo tagayaa hadda intaas dhacdo toos waxa loo tagayaa zone-kaagi asalka ah ee suuqa ka filaysay saasa lagu imanayaa zone-ka la iskama imanayo zone toos loo imanayo ma jiro trade walba aan qaadano warwareegaanu soo maraa way hadda counter trendka meesha laga jabiyay meeda lugti counter trendka imaamuleysay ee la jabiyay waa tan soo ma
zoonkii intriga ku noqonayay mee waa lugtaan la jabsaday laftigeeda waa intrigaaga kadibna take the trade adoo ku raaxaysanaya wax xitaa drawdown aan ku qabanayn baa fursadaha noocaas oo kale hada istiraatiijiyadan isticmaashid aad ku qaadan kartaa trade-kaagana kaga heli kartaa haddii aad isku kalsoon tahay aqoontan aad si deeply u baratay ya adigoo ka hor imanaya xitaa jihadii suuqa ayaad ka faa'iideysan kartaa fursadaha dhacaya ayaad ka faa'iideysan kartaa waa goorta aad garanaysid meesha laga yimi iyo meesha loo socdo haddaa garanaysid meesha laga yimi waxaad garanaysaa meesha loo socdo soo maad hadda xagee la joogaa suuqa dhan fursad buu ku noqonayaa marka haddaa istiraatiijiyadan baratid fursad baa tradeskaaga dhan ku noqonaya fursad markaa qaadatid oo ay TP-ga ku dhacdo fursad kale ku dhalanaysa waa haddii aad garanaysid meesha laga imanayo iyo meesha loo socdo waay hadda dhaqaaqan iska soo dhaqaaqaya u jeedid miyuu iska yimi meesha isaga laftigiisu maya dhaqaaqan TP-ga ku siiyey inuu TP-ga ku siiyo kasokow qisada kale ee ku dhex jirta waa inaad garan kartid meesha miyuu iska imanaya maya qaab candlestick shumacyadu qisada inta badan samaystaan ayuu ku imanaya muxuu samaysanayaa lower low lower high lower low lower high lower low lower high lower low waxa la yimi xagee la jooga hadda waxa la joogaa oo TP-gaagi laga siiyey higher low-gaagi already waxa og tahay fursadda targetkaygu inuu yahay higher low-gan sababta higher low-gan aad uga dhigatay target maxay tahay waxa og tahay suuqa guud ahaan inuu yahay uptrend higher high higher low higher high higher low higher high higher low higher high wala sameysani soo aragtay waxaan aad ka soo trade garaysay waxa og tahay inuu yahay counter trendka fursadan weyn counter trendkeeda inay tahay waxaani bullback inay tahay baa og tahay ka soo trade garaysay ee aysan ahayn impulsive bullbacktana waa lower time frame trade baa laga qaadan karaa fursad aan waqti dheer sii jireen oo ugu badnaan 40-50 biba ayaa laga qaadan karaa laakiin fursaddu hadda waxay ku joogtaa higher low-gaagi waa meeshii xasaasiga ahayd oo boostejada ahayd oo basku uu ka dhaqaaqayo weeye inta badan ereygaa waa iga maqashaan basku xagee uga dhaqaaqaya impulsivekii kalaa sugaysaa oo inuu ka hormaro suuqu higher high-gaan aad doonaysaa higher high-gaan in laga kormara aad doonaysaa waxaad diyaarinaysaa sida ay ku iman lahayd fursaddii higher high-gaan ka kormari lahayd sida ay ku iman lahayd baad diyaarinaysaa fursaddii higher high-gaan ka kormari lahayd sidii ay ku iman lahayd baad diyaarinaysaa sida ay ku imanaysaa waa sidee waa market makersku istiraatiijiyadda isticmaalaan wey waa market makersku istiraatiijiyadda isticmaalaan wey waayo istiraatiijiyaddan aan isticmaalno ee institutional tradersku ku trade gareeyaan oo ay retail traderska ku jahwareeriyaan waa istiraatiijiyaddan aan hadda isticmaalayno wey suuqa dhanna iyadu ku socda haddaa istiraatiijiyaddan fahantid oo baratid nasiib baa leedahay forexna waa ka guulaysanaysaa hadda suuqu xagee joogaa meeshaan uga ololeynay inaan ka raacno safarka cusub ee impulsiveka oo aynu higher high-gaan kaga kormarayno waaya maxaa number 1 counter trendkaagii uu ku yimi zone-kaagii fursaddii gaabnayd ee scenario 3-ga ahayd ee imanaysay zone-kaagii waa ka soo faa'iidaysatay zone-kii baa lagu joogaa maxaa u baahan tahay intii aad trade-kan ka soo raadisay baad tan ka raadinaysaa haddii aan lagu samaynin ma qaadanaysid trade-ka ma qaadanaysid haddii aan la samayn weliba waxay u badan tahay in suuqu kala wareego haddii la sameeyo qawaaniintaasna waa khasab in laga kormaro higher high-gaan maxaa ka kormaraya shumacyadaa ka kormaraya shumacyadan ka kormaraya higher high-gaan waa inaad saarnaatid marka adiga trade-ka waa inaad ku jirtid shumacyada waa inaad saaran tahay wey laabudda wey haddii aad marka rabtid inaad saarnaatid maxaa u baahan tahay inaad qawaaniintan isticmaashid kow maxaa u baahan tahay liquidity-ga inaan soo helno liquidity waa ceelka lacagtu taallo ay retail tradersku stop losska kaga dhufanayaan retail traders waxaanoo dhan haddaa ila socotay bilihii iyo sanadadii lasoo dhaafay si fiican baad u garanaysaa waaye liquidity waa haysataa liquidity-gaygi ma la jabiyey liquidity-ga in la jabiyo oo lacagta dadka halkan trade-ka ka qaadanaya in lacagtooda la qaato waa khasab marka la qaato kadib ayaan inaga fursadda
aynu u ololayn doonaa inaynu qawaaniinteena kale ka raadsano ogollo markaas way adigu inta retail traders lacagtooda la qaadanayo iyo dadka liquidity-gan la jahwareerinayo manipulation-ka lagu samaynayo marin habaabinta jahwareerinta inta lagu samaynayo suuqa waa daawanaysaa kor baa uga jeedaa marka la kala baxo ee fursad isdiyaariso ya markaasaa trade ka qaadanaysaa waa goorma markaas maxaase ku garanaysaa kow waxaa og tahay counter trendkayga waa soo laabtay labo maxaa kale og tahay liquidity-gayga waa lagu jabsaday fursaddii zone bay ii tagtay trade-kaygu waa up trend way okay maxaan u baahanahay keliya counter trendkan hoos u socda in laga istaajiyo oo fursaddu ay up trend isu beddesho inay up trend isu beddesho maxaan u baahanahay si up trend isu beddesho waa in la jabiyo lower high-gaygan hadda suuqa maamulaya in laga adkaado way selleriska maxaan doonayaa aniga inaan suuqa bay u galo buyerskan la jiraa sidaa darteed waa in awoodda ay la wareegaan buyersku simple as that haddii aad barato wallaahi aqoontan waa ku raaxaysanaysaa sax xoogga saar baro waqtigaaga dhangeli kadib waa nasanaysaa waa la jabsaday soo ma aragti haddii la jabsaday maxaa u baahan tahay in laygu soo laabto interigu marka meelahaas ku dhalanaya 1 hour kaana inta badan ka eeganaysaa waa idin bari doonaa real shumacyadana waa aragteen interiga meesha ka qaato waana idin sharaxay interiga haddii lagu soo laabto fursaddii already waaba tagtayba trade-kan dhaqaaqaya marka ee candleska awoodda badan ku dhaqaaqaya waa inaad og tahay meesha uu ka dhaqaaqayo istiraatiijiyadan marka iyo qawaaniintan isticmaalno sirta suuqa forex ma maqasheen sirta lagu sheegayaa waa istiraatiijiyadan believe me sirta lagu sheegayaa waa istiraatiijiyadan inaad taqaanid wey intaana sharaxayo iyo in la mid inaad taqaanid wey waa fahamtay soo ma hadda trade-ka sababtan halka uga soo qaadanay waa fahamtay soo ma sababta suuq abtareena aan fursad kale u soo qaadanay waa ogtay soo ma aniga suuqan intaan waxa laga yaabaa waxaan oo dhan counter trend-kan soo laabanaya inuu maalin iyo 2 maalmood tahay maalinta ay 2 maalmood waxa laga yaabaa 3 bears inaad ka trade garayso USD CHF USD CAD iyo GBP USD kaliya inaad ka trade garaysaa laga yaabaa kuwaasi waxa laga yaabaa counter trend-kan 2 maalmood inuu soo socdo labada maalmood bila trade ba ahaanaysa ma ahaanayo maxaa rabaa marka anoo qawaaniinteeda isticmaalaya garanaya meesha laga yimiyo meesha loo socdo qawaaniinteeda inaan u soo faa'iideysto inta zone-kan la imanayo trade-keena soo qaato zone-kan haddii la yimaadana maalinta ku xigta inaan trade-ka weyn ee bibiska badan ee 100 iyo maasaada bibiska bixinaya inaan qaato oo impulsive-ka inaan raaco impulsive-kana inta badan bibis badan waxaan u malaynayaa inay fahanteen real charts iyadoo tahayna muuqaalaan ka soo duubaya ku soo biir telegram channel-keena ku soo biir telegram channel-keena casharada faraha badan ee YouTube ka soo dhigay daawo trade area maalin walba aan telegram ka soo dhigo daawo haddii aad ardada mentorship ka qaadanaysaa ka mid noqotidna soo dhawow iyadana waa mahadsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh